السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu bilaabi doonaa casharkeena labaad ee ACT-ga. waxaynu kaga hadli doonaa database-ka, gaar ahaan tibxaha uu database-ku leeyahay. Basic terms of database. Microsoft Access. barnaamijka Access-ku waa barnaamij aan wax ku xisaabsano. Is a database management system. waa database waa barnaamij loogu talagalay in wax lagu xisaabsado, which is part of Microsoft Office. Office-ka ayuu ka mid yahay. waxa wax ku xisaabsado shirkadaha, waxa wax ku xisaabsado iskuulada, waxa wax ku xisaabsada goobaha ganacsiga yaryar iyo ganacsiyada waaweyn. intuba waxay ku xisaabsadaan suite of application waa barnaamij ku habboon inaan wax ku xisaabsano. database user waxaa loo isticmaalaa to create database in wax lagu sameeyo ama wax lagu xisaabsado, and data storage xogtiina lagu kaydsado. barnaamijkan wuxuu ka mid yahay Office-ka barnaamijyada ay soo saartay shirkadda Microsoft. waxaana uu gaar ahaan barnaamijkani xooga saarayaa in wax lagu xisaabsado ama daatadii in lagu kaydsado waqti dheer. barnaamijkani waxa uu la mid yahay Word-ka, Excel-ka, PowerPoint-ga, intaba waxa weeye waa Office. database-ku wuxuu ka kooban yahay 4 objective waaweyn. objective koowaad waxaa loo yaqaanaa table, waa meesha ay xogtu gelaysay. form waa meesha xogta laga soo gelinayay. report waa meeshii laga soo daabacayay xogta, warqadii soo baxayay xogta la soo daabacayay, iyo query waa meesha xogta laga baarayay. table-ku is data structure, waa meesha xogtu gelaysay. where data can be organized, xogta ayaa lagu qaybinayaa in field. xogtii ayaa halkaa gelaysaa iyadoo ah diilimo, iyadoo ku jira layman. fields waxaa la laymanka taagtaagan. column waa loo yaqaanaa marka Excel ka joognay. report record waxay noqonaysaa rows, diilimaha markaa jiifa. xogta table-ku waxay geli ka dhacaan diilinta taagan ama tan jiifta. ayaa waxaa loo kala yaqaanaa field iyo record. labadaba xogta ayaa inoo gelaysa. record-ku is composed of information, waa warbixin about a single and particular person. warbixin waxa way ka turjumaysa ama qof ama shay or item ama shay ayaa warbixintiis weeye. database ku jira. sometimes arqalad waxaa loo yaqaanaa record-ka, mararka qaarkood waxaa loo yaqaanaa row. table-ku wuxuu leeyahay laba qaybood, field iyo record. field waa diilmaha taagan, record-na waa diilmaha jiifa. database-ku gaar ahaan tibxahaas u isticmaalayaa. waxaa geli karaa hal qof ayaa macluumaadkiisa ayaa la gelin karaa, ama shay baa la gelin karaa. tusaale ahaan hadday shirkaddu gado alaabta, itemskii bay markaas gelinaysaa, alaabteedii bay gelinaysaa. basic terms of database tibxaha uu iska leeyahay database-ku. field is waa diilimaha diilimaha taagan uu leeyahay database-ka. waxaan dhahaynaa field. record-kuna waa kuwa jiifa. a field specific piece waxaa gelaysa piece of information, waxaa gelaysa warbixin. and part of the record baa lagu qorayaa, and contains a single value, waxaa la gelin karaa hal qiimo of particular item ee walaxdaas. saynu ogsoonahay table-ku waa meesha wax la gelinayo. diilimaha jiifana waa la gelin karaa, xogta kuwa taagana waa la gelinayaa. alaabtii ayaa la gelinayaa, ama dadka magacyadoodii. aduu hadda database-ku wuxuu ku salaysan yahay baa la gelinayaa. hadduu iskuul yahay ardada magacyadooda baa la gelinaya. query waa meeshii laga baarayay. equation waa meesha su-aasha laga weydiinayay. as the queries waa meesha wax laga baarayay. iwantii waxaad doonaysid you can obtain select data, xogtii ayaad ka helaysaa from one or more table. hal table iyo in ka badan ayaynu xogtii ka heli karnaa. report waa xogtii markaa inoo wixii warqadihii daabacnaa xogta aynu la soo baxaynay. marka database-ku uu dhammeeyo xogta waa la daabacayaa. report waa warqadihii daabacnaa oo inoo soo baxayay. database report-ku format results waa natiijooyinkii. that contains waxayna ka kooban yihiin useful information, warbixin iyo Microsoft Access database. database-ka ayaa inoo soo saaraya. report-ku waa warqadaha inoo soo baxaya markaynu wax xisaabsanayno database-ka aynu wax ku xisaabsanayno. saynu ogsoonahay kan waa table.
table kan wuxuu ka kooban yahay field and record table kan magaciisa waxa loo yaqaanaa employee waxa uu ka kooban yahay last name first name iyo phone number saddexdaas waxa weeye waa field waa dilimihii taagnaa uu iska lahaa barnaamijkan wax ku saabsanayno database-ka shaqaale ayaa xogtooda la gelinaya halkan lambaradoodii magacyadoodii ayaa halkan lagu kaydinayaa dilimahan jiifana waxaan leenahay record waa dilimihii jiifay ay xogtu gelaysay fieldigana way gelaysaa labadaba way gelaysaa waxa uu ku leeyahay intaasoo field ayuu leeyahay afar field ayuu ka kooban yahay data processing datada waa habaynaynaa data processing datada waa in la habeeyaa is a simply conversion of raw data to meaningful datadii waxaa laga dhigayaa mid macno leh information mid warbixin macno leh throughout a process inagoo computer adeegsanayno oo computer ku habeynayna xogtii marka hore way soo qoraynaa kadib markaynu computer ku qorno xogtii aynu ku habayno marka xogtu waxay noqonaysaa mid macno leh data flows datadii way soconaysaa cycle waxay maraysaa meerto where input datada marka hore waa gelinaynaa computerka raw facts xaqiiqdii data sax ah oo la soo hubiyay ayaan computer gelinaynaa and fair to process waan bisleynaynaa computer system computerka ayaynu ku habaynaynaa softwares ama softwarada computerka etc iyo wixii la mid ah to produce output kadibna waxaa la sameynayaa warbixin output ayaa laga soo saarayaa information and insight warbixin ayay xogtii laga soo saarayaa goortii la habeeyo computer lagu habeeyo datada waxay martaa 6 meerto 4 meerto 5 meerto inta waa arki doonaa data processing cycle meertada datadu marto is a sequence of steps waxaa jira tallaabooyin or storage ama data kaydkii datada can be done by numbers waxaynu datadii marin karnaa lambaro of data processing method waxaynu maraynaa hababka datada lagu ururiyo waxaa jira qaabab kala duwan oo datada loo soo ururiyo taas ayaa waxa loo yaqaanaa meertada ay datadu marto 6 hab ayaa jira ay datadu marto saynu ku arkayno casharkeena soo socda stages of data processing circle meertada datadu ay marto kow datada marka hore waxaa laga soo qaadanayaa meelo kala duwan waxaa lagu sameynaya waxa loo yaqaano collection datada waa la soo ururinaya buugaag kala duwan ayaa laga soo qorayaa waxaa laga soo qorayaa warqado kala duwan ayay ku qoran tahay datada marka hore collection baa la sameynaya waa la soo ururinayaa marxaladda labaad waa maxay barbaarisha inta saxda ahayd baa lagala baxayaa waa la diyaarinayaa kadibna waxaa la sameynaya computer ayaa loo imaanaya input computerka ayaa la gelinayaa computerkii markii xogtii la geliyo computerku isaga markaas 0 iyo 1 buu fahmayaa datadii markaas isaga ayaa computerku bislaynaya ama habeynaya kadibna datadii waxaa la sameynayaa waa la output baa la sameynaya waa la soo saaraya marka u dambeysana datadii waa la storage baa la kaydinaya talaabada koowaad oo datada lagu soo ururiyo waxa loo yaqaanaa collection is the first stage waa talaabada koowaad of cycle ee meertada datada lagu soo ururinayo and is very crucial waana qaybta ugu muhiimsan in data la soo ururiyo ma qaybta ugu muhiimsan talaabada koowaadi since the quality of data waxa la hubinayaa tayada datadaas inay mid tahay sax ah meel lagu kalsoon yahay laga soo qaatay collected will import waxa weeye waa la soo ururinayaa heavy on output kadibna waa la soo saarayaa the collection process needs habkan wuxuu u baahan yahay to ensure inaanu hubno that data gathered datada waa la soo ururinayaa are both defined and accurate mid sax ah iyo mid aan sax ahayn labadaba waa la soo ururinayaa datadii marka hore collection ayaa lagu sameynayaa datada dhammaanteed waa la soo ururinayaa ila kala duwan ayaa laga soo ururinayaa waa kala duwan ayaa laga soo qaadanayaa warqado kala duwan ayaa laga soo qorayaa waxaa la sameynayaa talaabada koowaad in datadii la soo ururiyo preparation waa in data saxda lagala baxo is the manipulation of data datada ayaa la bislaynayaa into form suitable waxa laga dhigayaa hab ku habboon for further analysis datada ayaa la habeynayaa and processing waa la process gareynayaa raw data datadu markay tahay mid cayrin aanan bislayn cannot be processed lama bislayn karo and must be checked for accuracy datadii waa in saxnaan la hubiyaa inay datadu tahay mid sax ah datada tan aan soo qaadanaynaa waa inaynu iska hubinaa inay tahay data sax ah oo aan datadii kala baxnaa intii saxda ahayd
waan diyaarinaynaa kadibna waxaan jeegaraynaa daatadii marka hore ma aysan bisla markii aynu accurate ku samayno daatada waxaynu kala baxaynaa inta markaas aynu uga baahannahay labadaas tallaabo waxa weeye qofku computer ma isticmaalayo qofka ayaa labadaas tallaabo soo qaadaya soo ururinaya inta saxda ah ku saaraya markaas ayuu computer la dul imaanaya input kadibna computerka ayaa la gelinayaa statusku waa shaqada where verified data xogta ayaa is coded or converted waxa la gelinayaa into machine readable machine akhrinaya form machine ku habboon oo akhrinaya ayaa la gelinayaa oo computerka soo sidaa daraadeed that it can be processed datadii waa la habaynayaa through a computerka inagu adeegsanaynaa data entry datada waa kaydinaynaa is done through a useful keyword waxaan isticmaalaynaa keyword ayaan isticmaalaynaa markaan datada gelinayno digitization qalabka hardware ah oo loogu talagalay sawirada iyo computerka lagu soo geliyo ayaan isticmaalaynaa scan oo isagana qalab loogu talagalay warqadaha computerka lagu soo geliyo ayaan isticmaalaynaa si xogta computerka u soo gelino oo data entry waan soo gelinaynaa from existing sources ilaa aynu kalsoon ayaan datada ka soo qaadanaynaa kadibna computerkii ayaynu ku xireynaynaa datadii marka aynu computerka datada ku xireyno computerka ayaa shaqadiisa qabsanaya computerka si ogsoonaa wuxuu ku fahmaa 0 iyo 1 shaqadii halka ka dhacaysa waa maxay computerka inuu shaqadiisa qabsado oo warta shaqadii habeeyo datadii marka computerka ayaa la wareegaya processing is where datada ayaa is subjected to the verified means and methods of manipulation is when datada ayaa is subjected to the verified means processing computerka ayaa shaqadan qabanaya is when waa markii data is subjected to the verified means datadii ayaa waxa loo sameynayaa in computerka la geliyo iyadoo noocyo kala duwan ah and method of manipulation ee qaabab kala duwan iyadoo ay computerka soo gelaysaa the point where computer program is being executed marka shaqadan waxa qabanaya computer ayaa shaqada inoo qabanaya and it contains program code computer ayaa shaqada inoo qabanaya and is currently activity waa shaqa markaa taagan oo computerka ayaa shaqadan processing waxa inoo qabanaya shaqadan computerka isaga ayaa bislaynaya xogtii si iyo markuu fahmo shaqada waxa inoo qabanaya computerka ayaa inoo qabanaya xogtaas ama shaqadaas output and interpretation data la soo saaro la turjumo stage waa marxaladda where the processing information oo bixintii is not transformed waxa loo bedelayaa to the user isticmaalihii output waa la soo saarayaa is processed to the users waa la bislaynayaa verify in various formats qaabab kala duwan like printed report waan daawacaynaa reportkii oo kale audio waxyaabihii dhageysanayo kale ayaan daawacaynaa video ayaan soo saaraynaa or amaseba monitor ama shaashadaynu ka arkaynaa oo waxaan soo saaraynay soo sidaa daraadeed data can be provided meaningful information datada waxay noqonaysaa goortaa mid macno leh marka la soo saaro waxay noqonaysaa markaas mid macno leh oo ah markii qaabka kala duwan waxaan ku saari karnaa printer inay isticmaalo iyadoo cod ahaan aan soo saari karnaa video ahaan baan ku saari karnaa shaashadaynu ka arki karnaa so that it can provide meaningful information kadibna waxay noo siinaysaa macno buuxa storage waa marxaladda ugu dambaysa is the last stage waa marxaladda ugu dambaysa in the data processing cellka ay datada marto where data halkaas xogta instructions awaamirtii and information iyo warbixintii are held for future use waxaa loo isticmaalayaa mustaqbal ahaan ayaa loo isticmaalayaa waa computerka waa la kaydinaya marka computer baa la geynayaa stages of data processing cycle meertadu ay xogta marto collection in la soo ururiyo preparation in markaas inta saxda laga qaato input in computer la geliyo processing in computer shaqada qabto output inuu soo saaro iyo storage inuu kaydiyo waa shaqooyinkaas waxay ka dul dhici doonaan stages of data processing cycle meertada ay datadu marto 4 stages bay marka qaarkood martaa data input xogta baa la gelinayaa data processing waa la bislaynayaa information output oo bixin baa la soo saarayaa data storage waa la kaydinayaa data processing cycle marna waxay martaa 5 meerta ayay martaa data collection waxa weeye data collection inta xogta la soo urusho source document in documentyo kala duwan laga soo qaato input in computerka la geliyo processing in computer shaqada qabto habeeyo
output in la soo saaro, storage in la kaydiyo, marna 5 marxaladood baa lagu soo koobaa. What is the Microsoft PowerPoint? barnaamijka PowerPoint. What is the difference between slide and slideshow? maxay kala duwan yihiin slide iyo slideshow? Steps to add a new slide to presentation. Presentation kana ugu soo dari karnaa slide cusub. How can we delete the slide from presentation? Si oo delete garin karaa slide. Which tab in PowerPoint drive allows you to add picture to slide? Si baa slide soo gelin kartaa sawirkaaga. Si u soo gelin kartaa slide picture soo gelin kartaa PowerPoint-gaaga. What is slide view? maxaa loo yaqaanaa slide view? Differentiate between kuwa kala saar animation and transaction, fill and report, data and information. Define Microsoft Access program iyo barnaamijka Access-ku. What is database? waa maxay database? What is the meaning of data processing cycle? maxay tahay macnaha data processing cycle ama data meersada marto? List stages for data processing method respectively. waxaad tirinaysaa qaabka ay daatada u marto si u kala horeeyaan. Microsoft PowerPoint is used to PowerPoint waxaa loo isticmaalaa write document wax lagu qorto, calculate number wax lagu xisaabtamo, design presentation wax lagu qurxiyo, keep data xogta in lagu ilaaliyo. The document that you create in MS PowerPoint noocaas waxaa loo yaqaanaa markaad PowerPoint document ku samaysid file, slide, presentation, none. The arrangement of computer in slides column computer slides kala isku waxaa loo yaqaanaa slideshow, slide layout, none. The text box you type text or picture is meesha picture ama sawir ka soo gelinaysa PowerPoint waxaa loo yaqaanaa place value, transaction, animation, placeholder. To run or start your slideshow markaa slide kartina weynaysiiso waxaad taabanaysaa enter F control K. To add a new slide to presentation press waxaad taabanaysaa xuruufta tan isla qabanaysaa control N, control M, control enter, control U. When data is processing marka daatada la habeeyo it becomes waxay noqotaa software, information, code, none. Special effect used to introduce slides in presentation are called marka slideska waxa lagu soo daro waxaa loo yaqaanaa transaction, presentation, effects and database. Database element which allows enter data from table is markaan xog gelinayno database waxaan uga gelinaa tableka data form database. In which stage data processing is converted into meaningful? Si baan data u oran karnaa macna leh collection stage, storage stage, and processing stage iyo none. In which stage in data processing is converted into the meaningful facts? Data is uga dhigi karnaa mid macna leh collection stage markaan soo ururino, storage stage markaan kaydino, processing stage iyo none. intaas ayaynu kusoo gaabinaynaa casharkeenii labaad.